wafdigan uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Anna Duqa caasimada ayaa si diirana waxaa loogu soo dhaweeyay caasimada dalkan Turkiga ee Ankara. gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso oo kulan la qaatay Duqa Ankara Professor Dr. Mustafa Tuna ayaa waxa ay ka wada hadleen mataaneynta labada caasimadooda ee Muqdisho iyo Ankara iyo sidii ay wada shaqeyn lahaayeen horumarka iyo isdhaafsiga khibradaha dhanka maamulka adkeynta wada shaqeynta labada maamul. Duqa Muqdisho Injineer Yariiso ayaa kulanka kadib waxa uu la hadlay bahda warbaahinta waxa magaalada Ankara u nimid si aan uga qayb galno shirka midowga maamulada caasimadaha adduunka oo uu martigelinayo duqa magaalada Ankara Mustafa Tuna. sidoo kale waxaan maanta kulan gaar ah la qaadanay duqa magaalada Ankara Mustafa Tuna waan ka wada hadalnay arrimo fara badan si loo xoojinayo xiriirka Muqdisho iyo Ankara iyo qorshaha berito loo degsan ee ah inaan wada saxiixano mataaneynta labada magaalo oo aan in muddo ah 6 bilood u dambeysay ka wada shaqeynaynay annaga iyo Ankaraba. waxaan si gaar rabaa inaan halkan uga mahadceliyo safaaradda Soomaaliya ee dalkan Turkiga magaalada Ankara safiirka iyo konsulkaba oo si heer sare noo soo dhaweeyay iyo duqa caasimada Ankara. kulankan oo runtii muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waayo mataaneynta Ankara iyo Muqdisho ujeedadeedu waxay tahay sidii magaalada Muqdisho oo aan baryahanba wadnay dadaal ah sidii barisimaadka u soo noqon lahayd caasimadana caasimad shacabka u adeegta adeegyadii looga baahnaa fuliso u noqon lahayd inaan wax badan ka baranno walaalaheen Ankara isla markaana isdhaafsano way aragnimada iyo iyagoo noo ballan qaaday inay runtii garab istaagayaan dalka Turkigana waa dalaan walaalanahay runtii aad iyo aad muddana noo garab taagnaa. waxaan kale uga mahadcelinay sida dawladda Turkiga mar walba Soomaaliya u garab taagan tahay. waxaan rajaynaynaa marka in marka aan wada saxiixano heshiiskaasna noo bilaabi doono waji cusub oo xiriirka ah taasoo aan rajaynayo in ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana ay ku faa'iidi doonaan. maayarka Muqdisho ahna barasaabka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale magaalada Ankara waxa uu kaga qayb gali doonaa shirka midowga caasimadaha adduunka. Injineer Yariiso ayaa inta uu joogo Ankara waxa uu la kulmi doonaa qaar ka mid ah madaxda caasimadaha caalamka oo halkan ku shiraya shirka Baritoole oo looga hadli doono sidii loo mideyn lahaa magaalada madaxda adduunka ay khibradaha iyo aragnimada isu dhaafsan lahaayeen caqabadaha jiro iyo ka wada hadli lahaayeen ujeedaduna uu noqdo madal ama forum wax loo yaqaano oo ay mas'uuliyiintaas mar walba isugu yimaadaan. marka shirkaana isagana shir wuxuu noqon doonaa Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalkii aasaasiyaasha ah ee midowgan maamulada magaalada madaxda adduunka. marka runtii aad bay sharaf noo gelinaysaa. runtii kulanka caawa sharaftan waxay ahayd mid uu duqa magaalada Ankara u sameeyay meeyarada ama gudoomiyaasha magaalooyinka caasimadaha ee ka soo qayb galay shirkan. magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa magaalo taariikh weyn xambaarsan kana magac dheer inta badan caasimadaha shirkan ay ka qayb galaya. سلمان جمال سعيد TV عالمي يونيفرسال مجلة أنكرا.